إن عاوة وحوي هبين وضبطي وهذا معها وهبين عن سوني العشو وأنا قلت لك إني ولكن إن جواري إن هذا كان هرتي سكعد لأنه وحلا وجهي هرو دعي سيدي هرو الله شيء من أسعى في الليل ولنا وبرلمان كميديسين هي أو wax khilaaf ah uu sijrin mudane jawaari waa wada ognahay waa oday Soomaaliyeed khibrad aad u badan waxaan ku raadnaa u leh dhanka dawladda xilal badan soo qabtay wax aad u far badan ku soo kordhiyay institutionka baarlamaanka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sida mas'uuliyadda odaytinimada leh ku jirto uu tanaasulay isagoo ilaalinaya institutionkan in wax alla wixii dhibaato ah oo maxaa ku raad jiidaha ee ku ekaatintii hore wax ka dambeeya sida lagu yaqaano baarlamaanada adduunka maxaa ku raad in la isdilo in dhibaato dhex marto baarlamaanka uu ka ilaaliyay una qaatay inuu tanaasulo baarlamaankan iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad wanaag uu tanaasulay macnaheedu waxay tahay inuu magaceeni sharafkeeni ka ilaaliyay ceebta waxaan aaminsanahay tanaasulkaas uu sameeyay oo in la waxyaraatay wax shuruudo ku xiran inuu Ilaahay u bedelayo sumcad iyo sharaf iyo magac maxaa yeelay anaa soo maray iyadoo dadku ay leeyihiin wasdee ku tagaysaa umadoo dhan baa ku rabta ilaahay diiwaaragtaa wuxuu igu bedelay marka ilaahay waa qafuur raxiim awoodiisu wax limida ma laha waxaan aaminsanahay inuu markay ugu saaran tahay naxariista ilaahay ka helayo badbaadada uu baarlamaankan iyo shacabka Soomaaliya ka ilaaliyay foolxumada iyo magac xumada mudan jawaari waa saan sheegay oday kulligeedna nagu leh xushmad iyo karaamo keligay ma aha annagoo dhan iyuu naga mudan yahay waxaana ku ballanay inaan sii wada shaqeyno oo si dhow u wada shaqeyno oo aqoontiisii iyo tusaaleyntiisii iyo taladiisii uusan nagala fogaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax alla wixii ku haray oo aqoona inuusan nagala fogaanin waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto maanta oo ah dabaaldegii aan u dabaaldegaynay sanad guuradii 58aad ee aasaaska xoogga dalka Soomaaliyeed runtii waa maalin weyn haddii dal uusan ciidan lahayn qaranimadiisu khatar ayay ku jirtaa marka inaan xoojinno ciidankeenna oo aan taageerno oo golaha shacabku ay xoogga saaraan oo weliba nagu adkeeyaan inaan xuquuqda ciidamada qalabka sida aan korrino aanan ka warqabno maxaa yeelay halkan aan fadhinaa waxaan arkay inay ku jiraan xaalad adag waxay ku jiraan dhufiisyo waxay fadhiyaan bannaanka waxay ilaalinayaan qoladaas horarka ah inaysan noogu imaan halkan kanaaca ku qoraysa waxaa laga yaabaa inay u dhaawacmaan inay u dhintaan marka inaan la ognahay oo mar walba xasuusanna xaaladda adag ay ku jiraan aanan garab ku siino aanan ku taageerno aanan ku daryeelno waxaa laga rabaa xildhibaanada sharafta leh iyo xukuumadda waa haddii aan doonayno inaan dalka ka horeyno qolooyinkan horarka ah oo shabaabka ah waxaa aan markhaati doonta ah oo markhaati ka ah inaan soo arkay 3 usbuuc aan deganaa wasaaradda gaashaandhigga inaan soo arkay ciidan diyaarsan oo niyad wanaagsan oo doonaya iyagoo duruuf adag haysta inay dhintaan laakiin maamul xumo ku dhacday insha Allah maamul xumadaasna waa ka saxeynaa wax alla wixii daryeel ah ay mudan yihiin waa siin doonaa insha Allah waa mahadsantihiin waxaa noo balan ah xildhibaanada sharafta leh inaad mid ahaataan oo aan u wada shaqeyno qaranka Soomaaliyeed oo aad la shaqaysaan xukuumadda haddii noqoto sharci dejintii iyo ansixintiiba haddaan midaysannahay waxaan aaminsanahay inaan shabaabka adkaanayno laakiin haddaan qaybsannahay
ومركا أي كفا يديسن كلام oo ay dhibaatooyinkan aragnay oo dadka ay leenayaan qaraxyada joogtada ay sameynayaan hoteelada galayaan ay u suurtoobayso laakiin haddaan midaysannahay oo aan u midaysannahay inaan dalkan dib uga xoreeyo shabaab oo aan u midaysannahay inaan dowladnimadana dhisno aan u midaysannahay inaan ciidanka dhisno waxaan aaminsanahay si dhow oo aad iyo aad u dhow inaan uga adkaan doono qoyinkaas horarka ah ee al-shabaab saad ogtihiin maanta waxay qarxiyeen ciyaal dhalinyaro ah oo kubad ku cayaaraya baraawe waa ilmo yar yar ah oo aan qaan gaarin iyo waxay soo dhex dhigeen miina soo dhex dhigeen waxay halkaas kaga dileen dhalinyarada 4 dhalinyaro ah oon waxba garabsan oo iska cayaaraya marka macnaheedu waxay tahay waxaa noo yaal howl aan fududeen iyo noo taalla annaga yaan isu joogin aan isindha buuxino dhibka iyo qaraxyada iyo dagaalka joogtada ay nagu hayaan shabaab yaa wax walba nooga weyn cadow keliya aan leenahay waa iyaga waxaan u baahannahay muddo 2 sano wax ka yar inaan kulligan usoo wada jeesano dharkan u gashano shacabkana maxaan ku yidhaahdaa ku bogaadino ama ku dhiirigelino ama ku kicino inaan hal meel uga soo wada jeesano cadowgaasna wada haysta oo dalkeenna iyo sumcaddeenna iyo dadkeenna ee dhibaatada u geysanaya maalin walba waxaan rajeynayaa insha allah annagu waa soo jeesanay kolleyba idinkana diyaar baa tihiin annagoo gacmaha haysaysana inaan dowladnimadan dhisano annagoo gacmaha haysaysana inaan cadowga la dagaalno annagoo gacmaha haysaysana inaan soo celino sharafkii iyo karaamadii uu dalkan lahaa uu dadkiisu lahayo